السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada channelkeena Ixsaan maanta kama waramayno qiso beri hore dhacday waxaan ka waramaynaa qiso dhacday waqtigeena kale kama waramayno dad waaweyn waxaan ka waramaynaa qof dhalinyaro ah oo noloshiisa guul la taaban karo ka gaadhay maanta waxaan ka waramaynaa nin la yiraahdo Camaar Cumar oo Suudaani ah wuxuu ku dhashay Sacuudiga markuu ku dhashay Sacuudiga kadib waxa uu guureen reerkooda Suudaan waxa uu halkaa joogay ilaa uu 7 jir ka gaadhay markii dambe reerkooda waxay u soo guureen Imaaraadka ilaa ay maantana wuxuu ku nool yahay Imaaraadka waxa uu ka dhashay qoys aan faqiir ahayn laakiin ku nool bil kasta dhamaadkeeda lacagta oo soo dhacda yaraantiisa markuu bilaabay waxbarashada dadku waxay oran jireen saaqid baa tahay waxuma baranaysid waxay saa u leeyihiina waxa uu ahaa qofka qoyskooda ugu darajo hooseeyay marka loo eego walaalihiisa kale waayo reerkoodu inta badan waxay qiimeyn jireen waxbarashada walaalihiina aad bay ugu dadaali jireen waxbarashada isaga mooyee waxay ku tirin jireen qof nolosha ka dhacay oo saaqid ah hooyadii aad bay uga murugoon jirtay mustaqbalkiisa waxa uu la tacaalay waxbarashadii markii ugu dambeysay uu dhameeyay noloshiisa intii hore waxay ku soo dhamaatay ciyaal xaafadnimo laakiin noloshiisa ninkan waxa bedelay markuu jaamacadii galay waxa uu arkay noloshii hore ee iskuulada nolol ka duwan inay jaamacadu tahay waxa uu arkaa inta badan dad noloshoodu sareyso ama dhaqaale far badan haysta waxa uu arkaa jaamacada markuu yimaado arday far badan oo ku imanaysa baawur qurux badan waxa uu jaamacadii ku arkay arday ay dhaleen dad maalqabeen ah waxa isweydiiyay anigu maxaa noloshan ku noolahay iyaguna maxay nolosha ugu nool yihiin inta badan su'aalaha maskaxdaada ku yimaado ayaa sababa inaad wax badan baadhid ilaa iyo marka dambe aad qaadatid go'aankii ugu fiicnaa ama ugu habboonaa intuu fikirayay Camaar aabihii shaqadii ayuu ka tagay noloshii reerkooduna way ku adkaatay Camaar wuxuu fikiraba markii dambe wuxuu go'aansaday suu qani u noqdo inuu galo ganacsiga waxa uu bilaabay suu lacag u soo ururin lahaa wuxuu tagay markii ugu horeysaba cid ay qaraabo ahaayeen ama cid ay isku dhawaayeen ayuu tagay lacag buu ka soo ururiyay lacagtii markuu soo ururiyay wuxuu guuda galay suu u bilaabi lahaa ganacsigiisii ugu horeeyay waxa uu xasuustay in xaafadooda agtooda ku taali jirtay maktabad dabeedna maktabadii uu tagay ninkii meesha haystay uu ku meega iibin kartaa wuxuu ku yiri hawaan ka iibinayaa dabeedna uu iibsaday maktabadii wuxuu ku fikirayay in 2 sano gudahood uu ku noqon doono nin taajir ah waxay xaqiiqadii noqotay 2 bilood ee ugu horeeyaba inaanu mashruucan soconayn 100% waxay noqotay talaabadii ugu xumeed oo uu noloshiisa qaado inuu iibsado maktabadaasi kumuu fashilmin maktabado kaliyata waxa uu xasuustay yaraantiisa markii lagu oran jiray adigu saaqid baa tahay waxuma baranaysid ayuu sir wixii bariga hore lagu sheegi jiray malaa waa dhab maktabadii lacagtii laga soo siiyay xataa kuma iibin xabad buu iibiyay ilaa iyo intii la siinayay in ka hooseeyo uu ku iibiyay Camaar inta badan qofku talaabada ugu horeysa markuu ku fashilmo waxa uu yimaado warwar far badan baa u yimaada Caamir in badan buu la nooraa warwarka maalmaha kamid ah isagoo baawur la saaran asxaabtiisii ayuu mid kamid ah su'aashan weydiiyay Camaar intaan mashruucan bilaabin ma daraasaysay intaan bilaabin mashruucan يعني wuxuu ka jeeday ma baadhay mashruucan inuu soconayo inaanu soconayn su'aashu saaxiibkii weydiiyay saaxiibkii dheer buu weydiiyay laakiin Camaar waxay u furtay albaaba far badan bay u furtay su'aalo badan inuu maskaxdiisa isweydiiyo maxaan anigu u fashilmay maxay dukaamadii kale dhawaa aanay iyagu fashilmin ee hore ugu socdaan sabab far badan buu isweydiiyay Camaar gurigu yimi internetka galay uu baaray sababta ay mashruucyadu u koraan iyo sababta ay mashruucyadu u fashilmaan waxa uu ogaaday qofku intaanu bilaabin ka hor mashruuca inuu sameeyo daraasooyin fara badan mashruucan halkuu ku habboon yahay mashruucan ma soconaya waqtigeeba ugu fiican in qofku bilaabo mashruuca waxaanad ka helaysaa su'aalahan jawaabahooga dadkaaga soo horeeyay ganacsiga oo ka hor bilaabay mashruucan aad bilaabaysid saad uga qaadatid fikrad Camaar wuxuu go'aansaday isla markaa inuu bilaabo waxbarasho ku saabsan ganacsiga soo hormara ganacsiyada maxadu buu dhigaa in badan markuu baadhayo wax uu bartay uu dhinacii cilmiga iska kabay ayuu bilaabay suu
mashruuc fiican suuqa u soo bandhigi lahaa ayuu bilaabay wuxuu soo bartay inuu ka midho dhaliyo. mar labaad ayuu galay ganacsigii waxaanuu furay ganacsi ah inuu sameeyo dhisaynada ganacsiga ama xayeysiimaha ganacsiga inuu sameeyo. wuxuu guudagalay suu mashruuciisa uga dhaadhicin lahaa ganacsatada waddanka jooga. ganacsadayaal fara badan way ku qanceen fikradiisa, qaar kalena way ka soo horjeedsadeen. ganacsigiisii ugu horeeyay uu guuleystay, haddana wuxuu guudagalay ganacsi kale suu u sameyn lahaa. ganacsigiisii kalena uu guuleystay ilaa ayuu ganacsi kale ugu dhiibo. Camaar wuxuu sameeyey fikrad kale oo ah inaanu mashruucyadu isagu sameynayaa aanay markasta u baahan Camaar uu sameeyo dad kale oo ka hooseeya uu ku aamino mashruucyadiisa si ay hore ugu marayaan. haddii markasta mashruucu Camaar ku xidhan yahay, Camaar hadduu safro mashruucaas u istaagaya. laakiin hadduu mashruuca hoos u dejiyo Camaar dadka ka hooseeya uu ku aamino, mashruuciisu markasta hore u soconaya oo Camaar kuma xidhna 100%. Camaar baaritaano fara badan uu sameeyey, waxa uu ku guuleystay mashruucyadiisa inaan isaga ku xidhnaan oo mashruucu isaga naftiisa u socdo. Camaar waxa uu galay mashruucyo fara badan waqti yar, waayo waxa uu gartay sirta ah ganacsigu inaanu ganacsigu isaga laftiisa ku xidhnaan oo ganacsigu laftiisa u socdo hore u socdo. su-aashu waxa weeyaan Camaar maanta halkuu joogaa? su-aasha inay isweydiino mudan waxa weeyaan Camaar maanta halkuu joogaa ama muxuu qabtaa Camaar imka? Camaar maanta waxa uu xukumaa ganacsi magaciisa la yiraahdo Royal Sky. waxa hoos yimaada ganacsiyo fara badan. mashruuca waxa hoos yimaada hoteelo, guryo kireemaha, loogooyinka in loo sameeyo ganacsadayaasha, waxa kale hoos yimaada farmasiyooyinka. mashruucyadaas oo dhan waa mashruucyo guuleystay isaguna uu maamulo maanta Camaar. yaraantiisa in badan baa lagu oran jiray waxaa tahay qof saaqida oo nolosha ka dhacay. maantana Camaar waxa uu maraya darajadii ugu sareeyay. ha isdhigan, muhiimadu maaha dadka hadalada ay leeyihiin ee waxa weeyaan dadka markaad ka tagtid aad waxaad kugu sheekeynaysid weeyaan muhiimadu. maanta Camaar waxa uu ka mid yahay dadka ganacsiga laga weydiiyo, dadka ganacsiga lala tashado marka ganacsi la furanayo. waxa uu ku fikray Camaar inaanu dadka u dhadhowo kaliya aanu siin fikradaha ganacsiga, uu sameeyo mashruuc weyn oo ah in dadka caalamka oo dhan jooga inay weydiin karaan su'aalo ku saabsan ganacsiga isaguna uga jawaabi karo. kulankiisa ugu dambeeyay uu sameeyay waxa uu ka sameeyay Sacuudiga, waxaana ka soo qayb galay 450 qof ka soo qayb galay. waa dad aad u badan weeyaan. Camaar waxa uu noqday ninkii reerkooda ugu qaniisan buu noqday, imkana waa qofka gacanta ku haya reerkooda. qof kasta oo adduunka ku nool uu isbedeli karaa oo dhib ma laha isbedeshadu, laakiin dhibku waxa weeyaan talaabada ugu horeysa aad qaadaysid weeyaan. talaabada ugu horeysa qofku qaaday ayaa dhib badan. qofku talaabada ugu horeeya uu qaaday hadduu eego halku lugta dhigayo, inta dambe uu guuleysanaya. haddaad doonaysid inaad isbedeshid, baaritaan samee, baaritaanka kadib ku dhaqaaq natiijada kaaga soo baxda. maalin kaliya kuma dhisi kartid guri, laakiin waa inaad ku bilowdaa xabad jaajur waa inaad dhistaa. maalin kaliya ku fakir inaad 100% isbedeshid, waa qeyr macquul. laakiin ku fakir inaad maalin kasta horumar aad sameysid. haddaad horumar sameyn weydidna ogow dib u dhac baa kugu socdaa. ha fadhiin, isbedelku kuma imanayo, waa inaad adu isbedelka doonataa. iska ilaali markasta inaad ku bilowdid si qof wax garanayo adoo aanad garanayn. baro markasta ogow markaad wax baratid ayaad talaabo qaadi kartaa. aad baan ugu hambalyeynaa intaad dhegeysateen.